السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalaha Soomaaliyeed dhammaantiin meel kasta aad joogtiin waxaan idin leeyahay cimri dheer iyo cibaado sano suuban caafimaad sariican risaaqad waasica. ilaahay waxaan ka baryayaa meel alle meeshaan joogna adduunkaba ilaahay inuu nagu nabad yeelo, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo gargaaro, khayrkana uu soo xijiyo. caawa waxaan ka hadlayaa sida ciwaanka ka aragtaan sababaha nagu badiyay furitaanka Soomaali haddaan nahay. waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo maadaama mawduucyada la isku furaa ay aada u fara badan yihiin oo kala duwan yihiin. waxaan rabaa hal mawduuc oo kamid ah inaan ka hadlo, kaasoo ah waxaan rabaa inaan ka hadlo familka Soomaaliyeed oo iyagoo is wata oo xaasa oo ciyaalkooda wata intay doonaan markaas hala ekaadaan wata wadankaas wadamadan oo westernka ee qurbaha haddaan dhahbo ama qurbaba nooc doonaha ahade soo galay. maxaa nagu badiyay furitaanka iyo kala taga hadkaad taqaanaan. marka anigu waxaan ka hadlayaa halkaas hal kamid ah kaasoo ah kuwa ayagoo is wata yimid intooda badan sababta keenta inay kala tagaan. waxaa jirta mar alle markaan nimaano halkaan wadamadan qurbaha waxaa nagu dhaca culture crash ama labadii cultureo saafooda isku daroo isfahmi waaya. markay isku dhacaan oo isfahmi waayaan waxaa nagu dhacaa wax la yidhaahdo confuse markuu nagu dhaco waxaa badanaya markaa isfaham la-aantii baa badanaysa. luuqadiyooda garanayn, ehelkii iyo meesha dadkii aada u laaban jirtay oon joogin, dadkii ku caawin jira oon joogin, aabii hooyo oon kula joogin, adigii oo wax lagaa sugayo oo barashar ku haysto ilaan dad baad kasoo kacday. dadkaas waxaa laga yaabaa inay dad kuu baahan yihiin oon kaa dharagsanayn. dadkeenana mar haddaad qurbaha soo jirto waxay u maleeyaan inaad janno firdowso dhex gashay. waxaan ahayn ma yaqaanaan. markaa way yar yihiin dad runtii fahmaya qurbaha macnaha iyo dhibaatada dadka ku haysata. markii aan nimaano wadamadan waxaa dhacda in ninkii uu markaas noloshii cayriyo. iska dhaaf marka luuqad barashada iyo waxaas waa markii aada cusubtaho oo aada xiiseynaysid wadanka. laakiin markaad wadanka aada dhowr sano joogtid ood fahamtid oo luuqad ahaan iyo wax walba aad fahamtid ood shaqo bilowdid oo hooyadii ay markaas iyaduna ay cuslaato ilmihii iyo wixii ay ku bataan, iskool baa la tegayaa, ilmihii tegayaan, wax ka keeni ay rabaan. waxaa dhacaysa aabbihii booskii looga baahnaa ee ahaa markii uu guriga joogo inuu hooyadii garab istaago, ilmihii casharada ka caawiyo, caruurta kaxeeyo oo banaanka geeyo oo soo ciyaarsiiyo oo soo nafisiiyo oo meelaha ciyaarka la geeyo oo la geelan 4 mitir bay ku jiraan caruurtii. maxaa ahaayeto lasoo nafisiiyo ciyaalkiioo daalan la keeno markaas loo qubeeyo inta wax la siiyo loo qubeeyo markaa la seexiyo la faham. laakiin aabihii intaas ma sameynayo badankooda. kuwa wanaagsan ma ka hadlayo ogow. waxaa jira kuwo markay shaqada ka yimaadaan toos cunto la siiyo markaana asagu danihiisa sariirtiisa iska seexdo. caruurtii hooyadii kaliya unbay ku dheganaanayaan. iskoolka ayadaa geynaysa, ayadaa ka keenaysa, shoppingka ayadaa sameynaysa, tuushinka ayadaa geynaysa, ayadaa ka keenaysa. wax walba ay banaankii waqtiba uma helayso hadday ugu badato because way daalaysaa qoftii. waxay u baahan tahay laftigeedu nafis ma helayso. adigu mar walba waxaa tahay qof marna wax karinaya, marna wax dhaqaya,
marna wax xaaqaya, mar shopping sameynaya, mar caruurta iskoolka ka keenaya, marna geynaya. time ma haysid aad tagtid oo ah inaad meel oo ciyaalkii adigu aad meelaad kusoo nafistid, ehelaad u laabatid ma haysatid. marka raggii waxay u qaybsameen kuwo aadan helaynin waqti aadan ku helaynin, oo markii uu shaqaha duuba shaqeeyana shaqada ka yimaado qubeysta cunteeya wuxuu rabo albaabka ka booda meesha fadhi ku dirirka fariista. haddii uusan shaqeynina hurdadiisa markii uu dhammaysto cuntuu cunayaa, asaa isdiyaariya, albaabku ka booda meesha fadhi ku dirirka. ma fahamtay? markaa gabadhii iyo isagii waa laysku dhacayaa. gabadhii waxay leedahay nin yahow caruurta ilahay, caruurta iskool ka keen. maya anu waan daalanahay, iskool baan shaqa jiraya. macnaha wax oo ay samaystaan program ay dhigteen oo ilmahaas iyo iyaga ay si ay gurigooda u dhisnaado ay ku fakareen oo ay dhisteen oo ay dhahaan maanta tan aan sameyno, weekend intaanaan sameynayna, weekend kale intaas, ilaan qurbaan joognaa. ma jirto. waxa waaye markaa gabadhii waxay dareemaysaa cidlo. ninkiina marna fadhi ku dirir buu ku maqan yahay, hadduu shaqeeyana marna shaquu ku maqan yahay, marna wuu jiifaa. marka ilmihii iyada waaye waxaa la dhacaayo la kufaayo. waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed oo bushinka qof ilmo ku jiidaysa, ku kale laba kale ay geesaha haystaan, mid maxaan ku dhahaa ay hadday rabto xaamilo tahay, cid kaloo la socotaa aysa jiro, shoppingki iyo wixiina halkan ugu dhex jiraan. marka waxyaabahaasoo kale weeye waxyaabaha oo reeraha dumiya. waxaa jirta hadda ka hor aan xadiiska meel nin oo muxaadaro aqrinaya ka dhageystay, wax fiican ayuu sheegay. wuxuu yidhi wareerka isqaba hal mar at least hal mar maalin keliya ha samaystaan oo ayaga u gaara, oo ay sheekaystaan, oo iscalool xaartaan, ninkii xaaskiisa ay iscalool xaartaan, oo iswareystaan, oo uu dhaho maxaad iga tirsanaysaa, oo iyadu maxaa kaa tirsanaya, oo iswareystaan, oo markaas calool xaarasho bishiiba hal mar inay samaystaan waaye. ma samaysano, ma naqaano taas. waxa waaye waxaanu waa no program no nothing. wadanka aan joognana waa wadan qurba ah. qurba markaad joogtidna cidlaa tahay, ilaahay ka sokow cidlaa tahay. haddiina saa isugu xirnaanin oona saa isku haysanin, labadiina reerka haysta oo ilmaha ka mas-uulka, haddiina saa isku haysanin ayaa idi cunaaya. marka inta badan waxaa lagu kala tago waxaa waa isfaham la-aan, culture clash. ilmihii markii la keeno afkii ma garanayaan, ciyaal kalaa loo geli, maalwalba dagaal iyo rabshay ku jiraan. ilmihii waa la qaadanayaa, ilaan daryeelkii ay u baahnaayeen lama helayo. aabihii marna waa hurdaa, marna hadduu la shaqeeyana waa shaqeeyaa, marna isagaaba carigiisa iska wareegaya, marna wuu jiifaa. waxaas looma baahno. waxaa loo baahan yahay reerku inuu saa isugu xirnaado, inaan caruurtan aysan cadow gacanta u gelin, caruurtan iyo gurigan inuusan meeshan ku duminin. haddii ina saas ku noolaan karin, si wanaagsan u noolaan karin, inaad inta goori goor tahay ilmahan meeshii asalkoodii ahaa aada u gudbisin ood geysin. haddii ina qurbahaan la qabsan karinin inaad ka kaxaysaan, haddii aad la qabsan kartaanna sida ugu wanaagsan inaad u samaysaan, ilmihiina inayna cilaynin. marka taan ka hadlay maanta waxaa waaye sababta keenta isku kala tagga reerka Soomaaliyeed oo tiro badan, dhowr iyo 50 nooca, hal nooc ka mid ah isfaham la-aan, program la-aan, isqalbi xaarasho la-aan, iscaawin la-aan, aabihiiyo mas-uuliyadii laga rabay aan sameyneynin, iyo hooyadiiyo aan helin caawintii ay u baahnayd, iyo eheladii ay ka caawin jirtay markay xagga joogtay. marka walaalayaal waxaan u baahannahay inaynu sida ugu dhaqsaha badan dib isugu saxno, inuusan guri dambe oo Soomaaliyeed oo iyagoo iswata oo dhisan oo qurux badan yimid inuusan ku dumin halkan.
because sababta inta badan ay ku dubaan soomaalidu waxa waaye iswaraysi la-aan, iscalool xaarasho la-aan, isgarabsi la-aan, isdulqaadasho la-aan, iswaanin la-aan. inaan iswaanino waayo qofkan waxa ka qaldan, kan maxaasaan ku kalifay. waa in la wada hadlaa. haddaan la wada hadlin waxba ma shaqaynayaan. marka insha allah biidni illaahi tacaalaa caawa intaasaan uga tegayaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay naga dhigo kuwii isku dulqaata, kuwii maaragtay waxa xun iska reeba, waxa sanna isku booriya. marka walaalayaal, haddii aad igu cusub tihiin subscribe iyo like iyo share waa xaggiina waxaad awoodin. haddii aad hore iila joogteenna waad ku mahadsantihiin aad igu soo baaqoteen. waxaa idin leeyahay share iyo comment iyo like wixii aad awoodiin, waxba idinkama dhimayso. aad iyo aad baad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. hana la feejignaado. assalaamu calaykum.